بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد مدحوينه ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici madaxweyne ku-xigeenkii hore Axmed Yuusuf Yaasiin wasiirada gudoomiyaha hay'adda xogta ganacsiga salaadiinta axsaabta dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo ganacsatadaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh farxad weyn bay noo tahay maanta in warshadan halkan laga furo oo intaas oo qofna isugu yimaadaan warshadan oo baahi badan waxaa jirtay waqti dalkeenna inta loo dhoofiyo xoolaheena nool lagu soo bedeli jiray caagaga maanta waa ilaahay mahadii inay baahidaasi hadho oo halkan aynu ku samayno insha allahu tacaala waxaan rajaynayaana inaanu gacan weyn ka siin doono sidii ay suuq u heli lahayd hadday magaalada tahay iyo hadday magaalooyinka kale tahayba iyadoo aanu rajaynayno inay noo soo saari doonaan dhasbinadii magaalada la dhigayeyna inay warshadeena noo soo saarto insha allahu tacaala iyo qodob labaad oo doonay inaanu ka wada shaqayno oo ah in recycle-kii maadaama caag badanna magaalada yaallo kol haddii warshadda caagu timaado waa inay la socotaa recycle-kiisii insha allahu tacaala taana inaanu ka wada shaqayn doono farxad bay noo tahay weyn maanta inaan halkan isugu wada nimaadno halkan lagu furo madaxweyne ku-xigeenku inoo furo aad baa u mahadsantihiin mas-uuliyiintana waxaan odhan lahaa hadalka soo kooba shaqadu way shaqo badan baa inoo taalee aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu